Iran ayaa go'aankeeda kaba dambaysta waxay ka soo saartay ka qaybgalkeeda tartanka koobka adduunka ee bisha Juun bilaaban doona iyadoo FIFA u dirtay codsi la xiriira kulamada loo qorsheeyay inay ku ciyaarto gudaha Mareykanka oo xiisada ay kala dhaxayso. Tehran ayaa soo jeedisay in kulamada ama ciyaaraha ay ku ciyaari lahayd koobka adduunka ee loo qorsheeyay garoomada Mareykanka in loo raro haatan loona wareejiyo Mexico sababo la xiriira dagaalka ka socda bariga dhexe iyadoo xiisada soo jireenka ah dhinacyadan ay tahay mid sii xoogaysanaysa. wasiirka ciyaaraha Iran Ahmed Dunyamali ayaa hadal uu siiyay wakaalada wararka ee IRNA ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran waxa uu ku sheegay inay suurtagal tahay in arrintaasi ay kala hadlaan xiriirka FIFA. Waxaan rajaynaynaa in xaalado la abuuri doono si caruurteenu ay ugu dambeyn uga qayb qaataan koobka adduunka ayuu yiri Dunyamali isagoo sii raaciyay hadalkiisa. Waa muhiim in si taxadar leh loo adeegsado dhammaan dhinacyada ciyaaraha si loo hubiyo in ka qaybgalka uu sii socdo. FIFA waan la xiriiray si ay uga falceliso arrinkan. Kooxda xulka qaranka ee Iran waxa loo qorsheeyay in la ciyaarto dalalka Belgiumka, New Zealand iyo Masar oo wareega kurubyada ay ku wada jiraan meel qura waxaana saddexdaasi kulan baa lagu qaban lahaa sida qorshu yahay Mareykanka oo sanadkan la martigelinaya tartankan dalalka Mexico iyo sidoo kale Canada laga bilaabo 11 Juun ilaa 19 bisha Luulyo ee bartamaha sanadkan. wasiirka ciyaaraha Iran Ahmed Dunyamali ayaa horey meesha uga saaray in Iran laga joojiyo ka qaybgalkeeda guud ee koobka adduunka xilli ciyaareedkan walow uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hawada u mariyay dunida fariin isagoo sheegay in aysan habbooneyn in Iran ay ciyaarto sababo amni dartood. Iran ayaana iska diiday sheegashadaasi iyadoo ku adkaysatay in go'aamada ay si gaar ah ay u gaarto FIFA oo kaliya isla markaana iyadoo cadeyn doonto haddii Iran laga joojinayo iyo haddii kale. waa tahay markan isla arrin kale oo la xiriirta dagaalka bariga dhexe aynu qoraansano. Tehran ayaa shaacisay arrin yaab leh oo shakiga jira sii xoojisay kadib markii qaar ka mid ah weerarada lagu qaaday goobo rayid oo ku yaala khaliijka lagu weeraray diyaarado shabaha kuwa Iran ee Shaheed 136. afhayeenka rasmiga ah ee xarunta howlgalka ee taliska ciidamada Iran ee Qatam al-Anbiya ayaa ku eedeeyay ciidamada Mareykanka inay nuqul ama qayb loo ekeysiyay ay ka sameeyeen droonka Iran ee Shaheed ayna u adeegsanayaan fulinta weeraro gudaha dalka gobolka ah si loogu eedeeyo Tehran inay geysatay loona abuuro khilaaf u dhexeeya iyada iyo dalalka kale ee dariskeeda. afhayeenka militariga ayaa xaqiijiyay in Iran ay si rasmi ah u qaadato mas'uuliyadda weerar kasta oo iyadu ay fuliso isla markaana ay bartilmaameedsato oo kaliya danaha Mareykanka iyo Israel sida ku cad bayaankiisa. taliska Qatam al-Anbiya ayaa sheegay in cadowga kadib guuldarro militari mid siyaasadeed oo soo gaartay uu adeegsaday khiyaano iyo sidoo kale dhagar isagoo nuqul ka sameeyay droonka Iran Shaheed 136 oo bixiyay magaca Lucas kadibna uu isticmaalay inuu ku bartilmaameedsado goobo ku yaala dalalka gobolka. qiyaastii 9 bilood ka hor ciidamada Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay nuqul ka sameeyeen droonka Iran ee Shaheed iyagoo sameeyay diyaarado weerar oo loo bixiyay magaca Lucas taasi oo qaadata qaabka weerarka isqarxinta ee halka jiho iyadoo tiknoolajiyadeeda laga soo meenguriyay droonka Iran ee Ruushka sida weyn ugu adeegsaday dagaalka uu Ukraine kula jiro. wax ka yar 8 bilood kadib markii la soo bandhigay bishii Luulyo ee sanadii 2025 Mareykanka ayaa markii ugu horeysay droonkan u adeegsaday howlgallo dagaal 3 Maarso taasi oo qayb ka ahayd howlgalka carada weyn loogu magac daray oo si wada jir ah Mareykanka iyo Israel ay u bilaabeen 28 bishii Febraayo ee sanadkan. bayaanka ayaa intaasi ku daray in ciidamada Mareykanka ay doonayaan inay abuuraan shaki una eedeeyaan si been ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran isla markaana ay qalluuciyaan talaabooyinkeeda difaac ee sharciga ah. ujeedada howlgaladan shaki ma leh waa in dabin loo dhigo Iran iyo dariskeeda isla markaana la abuuro khilaaf ayuu yiri isagoo adkeeyay in Tehran ay si cad u qaadato mas'uuliyadda weerar kasta oo iyadu ay fuliso kuna shaaciso bayaan rasmi ah oo cad. waxaana uu sheegay in weeraradii maalmaha lagu qaaday goobo ku yaalo dalal saaxiib iyo daris ah ay ahaayeen isku dayo fashilmay oo been ah oo lagu nisbeeyay si been ah ciidamada hubeysan ee Iran.
jimcihii lasoo dhaafay afhayeenka taliska xarunta khatamal anbiya ayaa beeniyey in la bartilmaameedsaday Turkiga isagoo carabka ku adkeeyey in ciidamada Iiraan aysan wax gantaal ah u ridin dhanka dalka saaxiibka iyo dariska la ah Iiraan. tani waxay timid kadib markii afhayeenka gaashabuurta NATO uu ku dhawaaqay in la qabtay gantaal nuuca balaastig ah oo Iiraan ka yimid kuna socday Turkiga, halka wasaaradda difaaca Turkiguna isla maalintaasi sheegtay in difaacyada cirka isbahaysiga ay ku sugan bariga Mediterranean-ka ay burburiyeen rasaas balaastig ah oo ka timid Iiraan oo soo gashay hawada Turkiga. dhacdo kale oo la xiriirta arrinkan, afhayeen u hadlay khatamal anbiya ayaa sidoo kale beeniyey in la bartilmaameedsaday dekada Salalah ee Cumaan toddobaadkii hore, isagoo ku tilmaamay saldanada dal saaxiib la ah Iiraan, islamarkaana sheegay in howlgalku ahaa mid aad u shaki badan islamarkaana Iiraan ay wado baaritaan ku saabsan dhacdadaasi. tan iyo 28 Febraayo, dalalka Khaliijka waxaa ku dhacay gantaalo iyo sidoo kale drones ka yimid Iiraan, kuwaasi oo Tehran ay sheegtay inay yihiin jawaab military oo ka dhan ah weerarada Mareykanka iyo Israel ay ku beegsadeen subaxdaasi. Iiraan ayaana si cad u sheegtay inaysan beegsanayn dalal gaar ah, balse ay bartilmaameedsanayso saldhigyada Mareykanka ee gobolka, laakiin weeraradaasi waxay waxyeello u geysteen xarumo rayid oo ku yaala dalalka Khaliijka. oo ka dhalatay xiisada military u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa weli sii socota xilli madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu sheegay in dalal badan oo ay saameysay isku dayga Tehran ee lagu xirayo marinka Hormuz ay ka qayb qaadan doonaan dirista maraakiib dagaal, iyagoo la shaqeynaya Washington si loo hubiyo in maraakiibta marinka uu furnaado weliba si ammaan ah. Trump ayaa sheegay in militariga Mareykanku uu 100% burburiyay awoodihii Iiraan sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaasi ku daray in 4 diyaaradood oo Mareykan ah oo shidaal siiya diyaaradaha kale ay dib u howlgaleen kadib markii ay waxyeello ka soo gaartay weerar lagu qaaday saldhig Mareykanku lahaa oo ku yaalay Sacuudi Carabiya, halka diyaaradda shanaadna ay waxyeello fudud qabtay. dhanka kale, taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM-ka ayaa sheegay in weerarkii ay ciidamada Mareykanku ku qaadeen jasiiradda Kharja uu ahaa mid sax ah oo ballaaran, kaasi oo lagu burburiyay baqaaro miinooyinka lagu kaydiyo, kayd gantaalo iyo koobab kale oo military. bartilmaameed dhaqaale isagoo falanqeynaya weerarka, ku-xigeenkii hore ee kaaliyaha wasiirka difaaca Mareykanka Sergio de la Vena ayaa sheegay in beegsiga jasiiraddan uu qayb ka yahay istaraatiijiyad lagu cadaadinayo Iiraan iyadoo la saameynayo ilaha dhaqaale ay ku tiirsan tahay. waxaana uu sheegay telefishinka Al Jazeera in jasiiradani ay tahay xarun muhiim ah oo laga dhoofiyay saliidda Iiraan, islamarkaana weerarka goobahaasi uu yahay isku day lagu xakameynayo ilaha maalgelinta ee nidaamka Iiraan uu ku tiirsan yahay, isagoo xusay in bartilmaameedyadaasi loo arko kuwo sharci ah marka laga hadlayo dagaalka. Hormuz waa qodobka ugu muhiimsan ee xiisadan. cilmi sare oo ka tirsan xarunta bariga dhexe ee Jason Campbell ayaa sheegay in marinka Hormuz uu noqday qodob go'aan ka gaari kara jihada ay u kici doonto colaadda hadda taagan. Campbell ayaa u sheegay warbaahinta Al Jazeera in xiritaanka marinkan maalmihii ugu dambeeyay uu cawaaqib dhaqaale oo culus ku leeyahay dhaqaalaha caalamka, waxaana uu sidoo kale ka digay in weeraro military oo kaliya aysan ku filnaan karin dib u furitaanka marinkan muhiimka ah, isagoo tilmaamay in horumarka mustaqbalka uu go'aamin doono jihada dagaalka, gaar ahaan iyadoo Iiraan ay weli sheeganayso inay gacanta ku hayso marinkan muhiimka u ah isu socodka dunida. Hormuz waa mid ka mid ah marinbiyoodada ugu muhiimsan adduunka, waxaana mara qiyaastii 20% dhoofinta saliidda caalamka oo ah shabeellowda meel, taasi oo ka dhigaysa in carqalad kasta oo ku timaada socodkiisa ay si toos ah u saameynayso suuqyada caalamka iyo qiimaha guud ee tamarta. geesta kalena, gudaha Mareykanka, dagaalka ayaa sidoo kale sababay kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka jirta. magaalada Washington ee caasimadda waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhan ah dagaalkan Mareykanku uu kula jiro Iiraan, halkaasi oo dibadbaxayaashu ay kor u qaadeen calamada Falastiin iyo sidoo kale Iiraan si ay u cambaareeyaan howlgallada military ee Mareykanku uu la wado Israel. senatarka xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ee Chris Murphy ayaa sidoo kale dhaliilay maamulka Trump, isagoo sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu si qaldan u qiyaasay awoodda Iiraan ee jawaabta military, islamarkaana uu lumiyay xakameynta jihada dagaalka. dhanka kalena, qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ayaa difaacay siyaasadaha aqalka cad, iyadoo senator Lindsey Graham uu ku tilmaamay beegsiga jasiiradda
in uu ahaa go'aan geesinimo leh oo sax ah, isagoo intaasi ku daray in weerarka uu gacan ka geysan karo soo gaabinta muddada dagaalka iyo gaarista ujeedooyinkiisii loo bilaabay. falanqeeyaasha ayaa waxay aaminsan yihiin in horumarka degdega ah ee militari ee ka socda guud ahaan gobolka Bariga Dhexe iyo xiisadaha ka taagan marinka Hormuz ay saameyn ku yeelan karaan dhaqaalaha guud ee caalamka iyo suuqyada tamarta. xilli caasimadaha caalamka ay ku sugan yihiin ama ay sugayaan waxaa kasoo bixi doona marxaladda xigta ee xiisadan sii kordhaysa ee ka jirta gobolka Bariga Dhexe.